هدينا عيد كسور قليل واحد قدرتان مرح يقولوا قدرتان مو ينتو قديس السوق هاي يلي أمر بعد دورته نقص السي إن الباب الصحر فاسوح هوية ودستور شبن وشرع شبن حسانات بوليه يقولوا يمرح إسرائيلي حق ومرهين شرع ومرها دولة ده يبريسك يعرفتهم حق ومرها إلى يقولوا روكشوا واحد يقول مقالة وولو المقالة يسكن دافعت كلا عيدك إلى لي مرحلة بالرماك لفت جودي إلا كقاعد اللي كسب بحال بابك طالما الأمر هو طريق عيدك البوليس كتشوفه الأمر عن كاسب بحين اليوم لو عدستي أمر بقى مدحوين يقصي يا ابن وحاول على واقع قرق بركة مأسارات بحرني محروم بحرني مقولة حرني بالديمقراطية بحرني من نبتقية حرني بوليس عندنا وهي كم هيدا ذاك وشرعي هذه أي مقطبة إن أي أوض ولا يستحق حكومتي وحنا صباحي قاليات شيء حكومتي جمع سنة هاي بين كانت تفتح اللبنان ذا كلها وكيلها إن إذا واحد هنا وجميع حسابات معارضك أغلبية كلها برلمان كانوا بدي حسبية معارضك بالله شو بدون كذا كان الجرينية شعب كيساك وشعب تربى لما يسوق صباحي كلها هرتيسة كوس أو كجلو سن أو ديدن دقمة حكومة وكلها مسوي كلها شعب تجينها إذا هم حقوا جامعين سندر ضدك هذا الله بدن ليسين ولا عمبارين ما هم حقوا أن طلابه ضدك وشيء ثاني كفله. وكشر. تلاوي كارهذا. وهذا بعدين تلاوي حزبية معارضة وقادم شعبي حزبية معارضة وحوشوا بدركوا حوشوا شعبي وحوشوا شعبي يكتبوا بيهين شعبي جو هذا بارو ما نقلنا تلاويك أنا قاضي أول بس المدها يعني كل مجتمع إنه مالته الدرجة يلا يعني كل قابل الشعب واقيس بوحة قولنا الدرك الرؤوس بحي هالجيسة إنه شغلي أن يدا نبتجي حمر لحد وأن درك حمل له جيسان هذا حزبيا معارضي وكل قابل يا شعب يقول درين كيس سيب بوحدة مجتمع بركة وحوي تلابنا وكقال لو حروش لأنه وأنا كور تشترينا هذا الروي. ورحمة الله وبركاته. كل شيء السومالي لأن دمان وسلام يا وعن كحوم هاي إن دعدو ما أنت خلاف يشققوا وأبوري قراها برلمانكو وحي أدا أي خصيصة سو غارسيين إن سببتها أوجد لور داوعي ciidamadii ammaanka sugayay hal qof oo shacibina ku dhintay afar qof oo kalena ay ku dhaawacmeen qaraabadii iyo heeladii iyo dhammaan dadka jumhuuriyadda Soomaaliland waan uga tacsiyadeynayaa aadna waan uga xumahay waxaan leeyahay nabadgelyada hala ilaaliyo hala la shaqeeyo ciidamada booliiska iyo guud ahaanba hay'adaha ammaanka ku hawlan ammaanku waa shayga ugu qaalisan ee qarankan haysto aniguna madaxweyne ahaan waa mas'uuliyaddeeda koowaad cidna ka yeeli maayo in nabadgelyada iyo khalkhal la geliyo golaha wakiilada waxaan leeyahay golaha wakiilada waxaa idin saaran mas-uuliyad culus oo bulshadu idinka fadhido maaha inaad maalin walba is haysataan oo qaranka qas gelisaan dhammaan waxaa idiin soo gudbiyey xeerarkii muhiimadda qaranku uu lahaa xeerkii ammaanka xeerkii doorashada miisaanadii qaranka komishinkii doorashooyinka waa khalad in guddoomiyuhu maalin kasta uu nagu eedeeyo inaanu faragelin ku hayno golaha mana jirto shaqada qaranku idinka sugaya ku hawlgala idinkuna wixii dhexdiina yaalla wadahadal ku dhammaystir sharcigana u hoggaansama golaha guurtida waxaan ku ammaanayaa waan ku hambalyeelayaa shaqada ay qaranka u hayaan gacan weyna waan ku siinaynaa waana ku mahadsantiin baan leedahay xisbiyada waxaa loo sameeyey in qabyaaladda lagaga baxo waa nasiib darro in maanta qaarkood ay ka soo baxdo baqyo qabyaaladeed waxaan leeyahay qarankani waxaad u haysaan mas-uuliyad waxaana waajib idinku ah inaad ilaalisaan sumcadda sharafta iyo haybadda qarannimada waad mahadsantihiin madaxweyne su'aal baan ku weydiinaya madaxweyne raalliga ah madaxweyne axmed maxamed siilaanyo ciidamada ammaanku
waxay u xilsaaran yihiin ilaalinta ammaanka cid ay iska eryanayaan iyo cid ay xumeynayaan iyo cid eryanayaan toona ma jirto laakiin cidna u adkaysan mayso dowlad ahaan wixii sharciga ka hor imanaya ee sharciga burinaya ee nabadgelyada waxyeelaya waajibka iyo xilka qaranka iyo dowladda saaran waa in la soo tallaabo ka qaato intaa wax dhaafsiisan oo ummadda lagula kacaya ma jirto waana ka xumay wixii khasaare iyo dhibaato ka arrintaa xildhibaanadu xasaanada ay leeyihiin ka waran xildhibaanadu xasaanada ay leeyihiin xisbaadu inay falgarasa ku dhaqacaan ma aha inay sharciga kaba weyno xildhibaanada la iska raadsada ma aha xildhibaanadu ixtiraam iyo qadarin bay mudan yihiin waana la ixtiraamaa laakiin wixii sharciga ka gudba ee ku xadgudba dee sharciga kaba weyna golaha baarlamaanka iyo golaha wakiiladu hawshiisa uu madax bannaan yahay isaga ku shuqul leh wixii nabadgelyada ku saabsanse waajib xil baa ka saaran dowladda ay waajib tahay meel kastaba ahaatee ama golo gudyaha noqoto ama dibadda noqoto inay ilaaliso laakiin waxaa golaha gudihiisa ah iyaga u xil saaran shaqadooda iyaga ku shuqul leh